Ogaalside oo ah channel u heelan in uu abuuro kacdoon aqooneed oo horumariya miskaxda iyo maanka bulshada. Waxa uu idinkugu bishaaraynayaa in aanu soo gudbinay channel cusub oo magaciisu yahay Ogaalside. Adeegan oo ah mid dhegeysi ah, ujeedad aanu u aasaanay channelkan ayaa ah waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jidkaas oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saarto Soomaalidu iyaga oo dhammaystiran. Jidkaas oo ah mid dhegeysi ah. Haddaba channelka Ogaalside wuxuu mar walba idinkugu heelan yahay soo gudbinta buugta duuban oo lagu magacaabo podcast. Waxaa kale oo taas ku dheer in uusan muuqaalku ka qaadan doonin waqti badan oo muuqaaladu ku kooban yihiin 10 ilaa 15. Waxaa ka codsanayaa dhegeyta in aad horumarisi miskaxdaada oo si joogta aad ula socoti hoyga buugata ee Ogaalside. Waxaa intaa ku dheer in aad waqtigaaga dahabiga ah ee muhiimka ku ah in aad kaga faa'iidaysanaysid kobcinta iyo horumarinta naftaada. Fadlan adoo mahadsan channelka soo subscribe garayso muuqaalkana like saar. Mahadsanid. Haddana waxaa galaynaa cinwaan cusub oo ka mid ah taladii labaad ee buuga, waxayna ku bilaabanaysaa sidan: waxyaalaha waqtiga dayaca. Hal, inaadan dareensaynayn ahmiyadda waqtiga iyo fadliga uu leeyahay. 2, hawada naftaada oo aad raacdo. Naftuna waxay jeceshahay raaxada iyo inaadan mashquulin. 3, inaad waxaad hadda qaban lahayd dib u dhigto oo aad dhahdo beri ayaan qabanayaa ama bisha dambe iwm. 4, inaad leedahay saaxiibo xunxun oo waqtiga kaa lumiya aadna kala sheekaysato wax aan waxba ku tarahin. 5, caajiska iyo inaad ka wahsato cilmiga akhrintiisa iyo xifdigiisaba. 6, internetka oo lagu mashquule gaar ahaan Facebooka, WhatsAppka iyo waxyaalaha la midka ah. Weliba hadda waa waxyaalaha ugu badan ee waqtiga ka qaada dayarta. 7, dhegeysiga waxyaalo aan bannaanay ama aan faa'iido lahayn sida heesaha, nashiidooyinka iwm. Arday, iska ilaali waxyaalaha si aad hadafkaaga ugaadho cilmigaana heer uga gaadhid. Waxyaalaha kugu kaalmayn kara inaad ka faa'iidaysato waqtiga alle oo lagu xidhnaado lana raaligeliyo. Ahmiyadda waqtiga oo la dareensanaado. In mar walba la samaysto jadwal kuu qorshaynaya waqtigaaga iyo waxyaalaha aad qabanaysid. In layska ilaaliyo saaxiibada xunxun ee cilmiga kaa mashquulinaya. Cuntada oo aan la badsan. Cuntada badanna waxay keentaa hurdo badan iyo caajis. Saaxiibo fiican oo la samaysto kuna noqdo kuwa aad higsato, kuna dayato dadaalkooda iyo aqoontaada. Imaamu Xaramayn waxa uu yidhi, ardaygu wuxuu seexdaa cunaana marka ay ku khasabto dantu uun. Imaamu Nawawi waxa uu cuni jiray hal mar habeenkii iyo maalintii sida dad badan ka sheegeen. 3, waxaa ka mid ah tilmaamaha ardayga guulaystay. Waa arday ixtiraama qadariya maamuusa macalinkiisa. Macluumaadka uu sheegayana u dheg raariciya si aadaab iyo xushmana leh ula dhaqma. Ogow arday, macalinku waa waalidkaa kula jecel horumarka iyo inaad meel sare gaadho. Waxa uu dhididaa u soo jeedo una kalahaa siduu aqoonta kuu gaadhsiin lahaa, mana mutaysto inaad xaqiisa ka gaabisid. Dadkii hore waxay odhan jireen qofkaan xaraf ka faa'iido addoon ayaan u noqonayaa. Sheikh Rabiic la odhan jiray waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi, kumaan dhiiran inaan biyo cabbo Imaamu Shaafici oo isoo eegaya. Ardaydii hore ee taqaanay xaqa macalinkooda waxay ka ilaalin jireen macalinkooda sanqadha waraaqaha buugta iyo kutubta ay sitaan. Markaas ayay kitaabkooda ama buugaagtooda qoryo yar dhexda ka soo gelin jireen si aysan u sanqadhin marka ay hadhow rogayaan. Waxa ayna ardaydu ku celcelin jireen oo qaadi jireen baydkii Carabiga ee odhanayay, macne u isitaag macalinka, ilaali adiga oo weynaynaya. Waxa uu ku dhowaaday macalinku inuu rasuul noqdee. Laakiin hadda xaaladdu way isbeddeshay. Macalinku waxa uu ka mid noqday dadka loogu ixtiraamka daran yahay, marar badanna naftiisaba uma ammaan helo. Qaabka aad macalinkaaga u maamuusti karto. Casharka si wacan ugu dhegayso kana ximbaar aqoontiisa. Iska ilaali inaad ku hadasho ama sheekayso isaga oo darsiga jeedinaya. Iska ilaali inaad moobeel ama farahaaga ku mashquusho macalinkaaga oo darsigii wada. Iska ilaali inaad dhinacyada daymooto fiirfiiriso marka cashar ku socda. Fiiri macalinkaaga iyo buuggaaga una dheg raaraaci sharaxa macalinkaaga.
wixii waajibaad ah ama shaqo guri ah sidii laguugu diray isoo gudo. soo qayb soona maraajicee casharka lagu dhigay. marka macallinku su'aal fasalka weydiiyana isku day inaad ka jawaabto oo farta taagto macallinkaaguna waxaa farxad gelinaysa ardaydii oo casharkii fahantay su'aalahana ka jawaabaysa. u ducee macallinkaaga marka uu kula joogo iyo markaa aad ka maqan tahayba. 4 waa arday alle ka cabsada, cibaadaysta, akhlaaq fiican leh, socodkiisa iyo hadalkiisa ay aqoontu ka muuqato kuna dheehan tahay, masaajidda ku xidhan, salaadana jamaacada ku oga, farsooma awaamir alle iyo rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. 5 waa arday xumaha iyo dembiyaga ka fogaada. ardayguna haddii uu xumo iyo dembiyo sameeyo, dhibaato weyn ayuu kala kulmaa oo sababta inuu waxbarashada sii wadin. maskaxda ama qalbiga qofkuna waa muraayad, mar kasta oo uu qofku dembi sameeyana dhibic madow ayaa isku qorta. haddii uu ka toobad keeno waa laga taatiraa, haddii uu mid kale sameeyana mid labaad ayaa lagu qoraa. saas ayaa lagu wadaa ilaa qalbigu wada madoobaado. qalbi madoobaaday oo wasakoobayna wax ma qaybi karo, mana fahmi karo. ogow arday, mar kasta oo xumahaaga iyo dembigaagu bato, fahankaaguna wuu yaraanayaa. mar kasta oo aad alle ku xidhnaato, aadna dhowrsoon tahayn, ilaahay fahan dheeraad ah ayuu ku furayaa. nin la odhan jiray cali ibnu khashraam ayaa shiikhiilo odhan jiray wakiic ibnu jaraax oo ahaa shiikh aad u xifdi badnaa weydiiyey, waxaad xifdidaa intaan xifdino in ka badan ee maxay ku dhacday? markaas ayuu inta uu si hoos ah ula hadlay ayuu ku yidhi, caliyow, haddaan kuu sheego dawada loo cuno ilowga ma samaynaysaa? markaas ayuu yidhi, haa, ilaahay ayaan ku dhaartaye. markaas ayuu wakiic ku yidhi, waa macaasida oo laga tago. ilaahay ayaan ku dhaartaye, maan arag wax uga anfac badan xifdiga macaasida oo laga tago. imaamkii weynaa ee shaafici ayaa iska dareemay fahan xumo. markaas ayuu shiikhiisii wakiic ibnu jaraax u sheegay. shiikh wakiic talo dhaxal gal ah ayuu siiyey oo ahayd, iska ilaali macaasida, cilmiguna waa nuur, nuurka allana lama siiyo qof alle caasinaya. imaamu shaaficina waa kii lahaa. 6 waa arday macallinkiisa la leh xidhiidh xeel dheer, ka faa'iidaysta fasalka iyo xilliyada kaleba waxyaalaha soo wajaha kala tashada, gaar ahaan xagga waxbarashada. macallinka iyo ardaygu maaha dad aan wax dhigis mooyaane wax kale ka dhaxayn. macallinku waa waalid la rabo inuu xanaaneeyo, raganimdiisan isugu geeyo sidii arday aqoon leh u soo saari lahaa. ardayguna waa wiilkii macallinka, waxaana laga rabaa inuu qaato talada macallinkiisa. waxyaalaha cilmigu uusan ka marmin waxaa ka mid ah ardaygu inuu macallinkiisa u dhow yahay, si gaar ahna ula xidhiidho, wax kasta oo uu u baahdana uu weydiin karo. 7 waa arday u dulqaata dhibka waxbarashada iyo adeegeeda. culummadu waxay odhan jireen, macne laguma gaadho cilmiga jidhka oo loo raaxeeyo. taariikhda dadkii wax bartay mar aad akhriso waxaad arkaysaa arrimo adag oo ay u soo mareen barashada cilmiga, sida safaro dhaadheer oo ay weliba cagahooda ku soconayeen, gaajo iyo haraad, ilaa qaarkood ay kaadidooda ka cabbeen marar badan. cilmiga waa shay sare, waxaa sarena laguma gaadho si fudud ee waa loo maraa adeeg iyo dhibaato. imaamu shaafici wuxuu la yidhi, lama haleelo cilmiga iyada oo duliga lagu sabro mooyaane. cabdilaahi ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi, isaga oo kala hadlayay cilmiga, waan dulloobay markaan dalbayey, waana cisoobay markii ani layga dalba. ninkii carbiga ku gabiyeyna waa kii yidhi, macne qofkan aan dhadhamin qadhaadhka waxbarashada saacad wuxuu qudhqudhiyaa dulga jahliga noloshida oo dhan. 8 waa arday wax akhriya oo aan ku ekaan casharka uu soo dhigtay iyo muqarkiisa keliya, gaar ahaan takhasuskiisa buugaag badan ka akhriya. cilmigu waa akhris, inta macallinka aad ka baranayso waa fure uun, adi ayaa lagaa rabaa inaad sii raadraacdo oo wax badan akhriso. 9 waa arday hansare sare leh, aaminsan inuu wax ku soo kordhin karo adduunka, dadkiisana wax u qaban karo. ogow arday, waxaa adiga kugu xidhan ummaddaada mustaqbalkeeda. haddii aad noqoto mid aqoon leh, waxna qaban kara, dadkaagu mustaqbal fiican ayay leeyihiin. laakiin haddaad la mid noqoqo qofka jaahilka ah, una fikirto sidiisa, dadkaagii adaa la hadhay. marka ummad mustaqbalkeeda iyo meesha ay ku dambaynayso la rabo in la ogaado, waxaa la fiiriyaa dadka u soo kacaya
waxa ay yihiin iyo sida ay u nool yihiin. Hadday noqdaan kuwo wanaagsan, ummadaas mustaqbal fiican ayay yeelataa. Hadday yihiin kuwo habeen ah oo aan waxba kala ogayna, ummaddaas mustaqbalkoodu mugdi ayuu madaxa la sii gelaysaa. 10 waa arday dadaal badan, casharka si wacan u dhagaysta marka uu macallinku jeedinayo, hadhowna soo muraajaceeya, wixii shaqo guri ahna ka soo shaqeeya. Arday walbaana ardayga uu ka dadaal badnaa xilligii waxbarashada beri wuu ka darajo sarayn doonaa, kana aqoon badnaan doonaa. Beydkii carabiga ahaana waa kii odhanayay, macne sida loo kala dadaal badan yahay ayaa loo kala kasbadaa saraynta. Qofkii meel sare doonayaana habeenkii ayuu soo jeedaa. 11 waa arday dhaqangeliya oo aan dayacin talooyinka muhiimka ah, kuna qora baal dahab ah iyo buuggiisa ugu muhiimsan, ama ku dhejista waraag ay ku qoran tahay gidaarka si uu marba u xusuusto. Imaamu Bukhaari oo qoray kitaabka la dhaho Saxiixul Bukhaari oo ah kitaabka ugu weyn kutubta ay muslimiintu qoreen, noqonayana kitaabka labaad ee aynu haysano, waxaa keliya oo ka horeeya musxafka qur-aanka ah, waana kitaab lagu ururiyey axaadiistii nebigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee intii saxiixa ahayd. Waxaa ku kalifay qoraalka kitaabkaas Imaamu Bukhaari waxa uu ka maqlay shiikhiisii la odhan jiray Isxaaq ibnu Raawey oo ardayda ku leh, haddaad ururin lahaydeen kitaab kooban oo ku saabsan inta saxiixa ah sunnada nebiga way fiicnaan lahayd. Imaamu Bukhaari ardaydaas ayuu ka mid ahaa, hadalkaasna qalbigiisa ayuu meel kaga dhacay, saas ayuuna ku go'aansaday inuu arrinkaas u istaago, wuuna ku guulaystay. 12 waa arday joogteeya waxbarashada, mar walbana heerkiisa waxbarasho kor u qaada, dariiq kasta oo uu cilmi ku kororsanayana ka faa'iidaysta, geed dheer iyo mid gaabanba u kora cilmiga awgii. 13 waa arday fadhiista boosaska hore ee fasalka, aan xagga dambe ismarin si uu waxyaale kale ugu mashquulo. Dib ismarintuna waa caadada ardayga caajis loowaha ah. 14 waa arday firfircoon oo ka qayb qaata dhammaan howlqabadyada madarasadiisa ka jira, sida aqoon isweydaarsiyada, nadaafada madarasada iyo 15 waa arday ixtiraama dhammaan dadka iyo bulshadiisa, hadalladiisa iyo ficilkiisaba ay ka muuqato aqoontu. waxaana la dhahaa macne inaad cid ixtiraamta ku tusi mayso jacayl aad jeceshahay cidda aad ixtiraamtay, laakiin wax ku tusaysaa tarbiyad wanaag. cilmi aan aadaab lahayna waa geed bilaa midha ah oo kale, ama dab bilaa xaabo ah. 16 waa arday nadaafadda ku dadaala, jidhkiisa iyo dharkiisuba nadiif yihiin, soo cadayda cidiyahana iska gura. 17 waa arday aan u jarjarin madarasada iyo goobaha waxbarashada, wakhti horena yimaada, habsankana ka taxadara. 18 waa arday ducaysta, allana ka barya inuu cilmiga u sahlo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisha ha ahaatee waxaa ka sugnaatay inuu ku ducaysan jiray, macne allow waxaan ku weydaystay cilmi naafic ah, waxtar leh iyo risqi wanaagsan.